sidaynu wada ogsoonahay waxa aan soo gabagabaynay maalintii khamiistii la soo dhaafay shirkii musharaxiinta xilka madaxweyne 2020-2021 qaybtiisii hore ama fayskiisii koowaad waxaa hadda aanu bilownay oo noo socda wajigii labaad shirka musharaxiintu runtii ay isugu imanayaan oo aan ugu talagalnay inaanu dabagal ku samayno oo aanu joogtayno kulamadayada si aanu muxuu ahaa wixii ka fulay go'aamadii iyo baaqyadii shirka ka soo baxay waxaanu mar kasta la hadalnaa oo aan ka warqabnaa xubnaha ka ah dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaanu kaloo mar walba aan la hadalnaa oo ka warqabnaa iyagana beesha caalamka oo runtii aan isu wadaarsano afkaarta iyo mabaadi'da loo baahan yahay inay ku hirgasho doorasho xor ah oo xalaal ah xalay waxaa shirkan ugu soo booqday oo noo yimi madaxweyne muxuu ahaa qoorqoor madaxweynaha dowladda galmudug waxaa runtii madaxweynaha aanu ka wada sheekaysanay oo aanu u sharaxnay go'aamadii iyo baaqyadii shirka ka soo baxay iyo sida loogu baahan yahay in dowladda madaxweynaha uu ka yahay muxuu ahaa galmudug ay qayb ka noqoto muxuu ahaa arrintaasi sidii ay u dhici lahayd doorasho hufan oo xor ah oo xalaal ah oo wada ogol ah waxaa kaloo runtii caawa shirka nagala soo qayb galay oo noo yimi xubno sarsare oo ka socda macadka heritage oo iyagu laftoodu noo qaybiyey daraaso cilmi baadhis oo runtii ay ka sameeyeen dhinaca horumarka iyo sida wax looga qaban karo dalka Soomaaliya waxaanu shirkayada ama shirarkayaga isdaba joogga aanu ku soo qaadnay sida aanu loogu baahan yahay in la joogteeyo fulintii iyo hirgelintii arrimihii shirka runtii ka soo baxay waxaa kaloo aanu mar kasta aanu u taagannahay inay dalkan ka dhacdo doorasho nabadgelyo ku dhacda doorasho wakhtigeedu ku dhacdo oo aan dib u dhicin taasaana lagama maarmaan ah waxaan rabnaa runtii dowladda federaalka Soomaaliya inaanu u sheegno in loo baahan yahay in doorashada haba yaraatee wax dib u dhici aanu ku imanin inaan la carqaladaynin waxaynu maqlaynay hadallo laga yaabo dadka mas'uuliyiinta inay ka soo yeedhaan oo ay dhici karto hadallo xanaf leh oo aan loo baahnayn inay runtii aynu maqlayno waxaynu maqlaynaa arrimo ku wajahan dowlad goboleedyada ama dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya sida dowladda Jubbaland oo kale oo ay dhici karto inay dib u bilaabanto dhibaatadii iyo mushkiladii ka dhaxeeyay oo ay ahayd in dowladda federaalku ay kula dhaqanto inclusive politics waxaa kaloo runtii maalmahan dhoweyd soo cusboonaaday dhibaatooyin xagga amniga ah oo ka dhacay magaalada Muqdisho waxaanu leenahay annagoo aad iyo aad uga xun oo runtii ka tacsiyeynay dadkii iyo dhalinyaradii ku geeriyootay shilalkaasi xagga amniga ah waa in dadka Soomaaliyeed ay meel uga soo wada jeestaan sugidda amniga dowladduna ay siiso hortabinta ama priority runtii inay siiso sugitaanka amniga wakhtigan hadda xasaasiga ah ee lagu jiro doorashada waad mahadsantihiin